وحوي وحا ضبعه إن أي ماشي تعالوا فرصة آلية قالوا فرصة داس هدي للدوريو أو أي إخلاص وجرو أو داعدنا وجرتو وحويان همرده ولا جاري كرا وجدنا ولا جاري كرا مجان بيوباهناي قف مجان أو لغص أمور بيوباهناي حلوانا ضيّد لي سنتين دنا أركيسو اسكما أننا نماذجين هدوس المدحوينه للموعد مدحوينه markuu ku yeero loo soo istaagayo ayaa la doortay oo Ilaahay nasiyo horta alxamdulillah wada inaan shaqada uu hayo iyo xukuumaddiisa aan raali ka nahay awgeed ayaan u nimid haddaan raali ka ahayn kuwii hore uma aanan imaan jirin laakiinse waxa uu ka shaqaynayo inuu qaybihii kala duwanaa ee siyaasadda iyo kulli iyo intii haysatay uu u yeertay oo uu geesihiisa fariisiyay oo uu nabad dhab ah ka shaqaynayo oo uu leeyahay kartidii waxa weeye isbaarooyinka lagu qaadi lahaa oo uu tiimkiisa oo fiqikow ka yahay ku dhiirigeliyo waxa weeyaan ayaa fursadaas keeni karaysa in dekad iyo petrol iyo wax walba lala soo bixi karayo madaxweyne ilaahay hortiisa raali baan ka nahay shaqadan haysid waa kula garab galaynaa si dhab ah ayaanu kula shaqaynaa xagar la'aan ah waxaan u soo daadagayaa intaana shaqada xildhibaan wasiir saabir aan u soo galin xildhibaan wasiir fiqi tiisan ka hormarsiinaya walaalayaal xaqiiqda aan isku sheegno deegaankii galmudug nus al-shabaab haysta waa la tiriyay wala amsan oo carrada maraysay oo tirinaysay yaani ciidamada iyo maleeshiyaadka iyo teknikada ayaa reportkoodii baan akhriyay walaalayaal in ku dhow 400 oo teknika ah oo waaweyn u badan ayaa beelihiina odayaasha halka fadhiya ay leeyihiin markaasaa deegaankeena waxaa haysta dhowr boqol oo wiil oo aakeeya haysta war waxaasi dadnimo ma runta la isku sheego waxa weeye inta deegaanka galmudug nus shabaab haysto wax horumar ah iyo wax dawladnimo la gaari karaa ma jirto waxa weeye wasiir fiqi waa ka go'an tahay ciidamada qalabka sida qaybihiisa kala duwan waa ka go'an tahay laakiinse shacabka iyo salaadiinta iyo qaybaha bulshada iyo siyaasiyiinteena ma naga go'an tahay inaan tuutaha gashanno oo aanu garab galno oo aanu la soo dhimanno diyaar ma loo wadayo maalintaas oo xeebteediyo halka ka bilaabatay ilaa iyo waxa weeye hirshabeelle ku tagta aanu marno annagoo xor ah maalintaasaa nabadgeliyo iyo horumar ugu horraysa inta ka horraysa been baa la isku sheegayaa haddii 6 bilood ay qaadanayso hawshaan waxa weeye 6 beri aanu siino fiqiyo tiibkiisa oo aanu hubkayaga faraha ka saarno oo garbaha ka galno si loo xoreeyo deegaanka arrintaasi waxay furo u noqonaysaa shaqada wasiir saabir ayay u noqonaysaa waxaan ballan qaadaynaa hawsha uu wasiir saabir noo soo jeediyey inaan haddaan nahay waxa weeye golaha shacabka aanu si hagar la'aan ah oo daacad ah oo ilaahay lagu og yahay aan ugala shaqayn doono inuusan ku guuldarraysan ama ku ceeroobin hawshan uu dhabarka saartay ayaan ku garabgalaynaa barnaamijkaas waqtiga uu bilaabmayo iyo qorshihiisa waxa weeye madaxweynaha ayaan warkaas u dayn doonaa